Aden iyo Piswin UNHCR oo dadka joogaan leaderska iyo RRDO oo arrimaha wax badan laga qayb qaaday waan ugu mahadcelinayaa dhammaan qolada Piswin shaqo badan bay nala qabteen carruurtayni ahaayeen camal la'aanta maanta kulli waan aragnaa waqtiyo badanna waan aragnaa wax kale oo hadal ku sii badinayna ma jirto inaan garabka ka istaagno Piswin ilmaha aynana Piswin way soo waday hadda markii inta wax wadasta laga rabo ee rabo bulkeetiga inuu dalbado ee la rabo dadka gadanayaan dhagaxa caadiga inay ka reebaan ay garab istaagaan anaga waaye diyaar baan u nahay inaan ilmihi anagana aan ka gadno dhagaxyaha kale ee la gadanayo ama gaarida lagu keenayo looridana inaan celino garabkan kaga taagana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa Piswin qaybta fiican ay nala qaateen carruurtayni waxyaalaha xubin aan uga cabsanayna ama shaqalaanta ahaayeen ayada badan oo 30 sano nala deganayaan waxay nala noo qabaneen ee Piswin Japan noo qabteen way noo yihiin reedaad marka waan u mahadcelinayaa Piswin waxaan leenahay carruurtayni sidan inay ku daaynin oo Piswin Japan waxaan jecelnahay kor wali carruurtay u soo anagana garab aan u noqono UNHCR-na waxaan ka codsanaynaa ilmi qandaraasya in la siiyo oo dhinacooda la soo fiiriyo oo ayagana sidan aan lagu dhaafin carruurta UNHCR maadaama ay Piswin siin hayso budgetka wax been ayaga yihiin waan u mahadcelinaynaa inta ay nabadgelyo Ilaahay aan ugu nala garab galo Great Nur Pelan so do come back where is he I also want to recognize the presence of the Sub-County Administrator for that, Mr. Aulad. And I want to talk in English and then Somali later on. I also want to say I'm representing the BA Fafi, my counterpart, who also had an issue, and he happened to go to see that. So thank you very much. And first of all, I want to appreciate this wonderful initiative. And everybody is aware that we have a government, both local government and national government. We have NGOs who have been with us for the last, surely, a decade, 2 decades, now almost 30 years. And there were so many projects that are going on, not so many projects, big projects. People are invested here, and today I want to assure that Piswin Japan really brought a very good initiative. We are people of those communities of both Fafi and Dab who really, when they were starting this project, who really assisted them, helped them, brought the youth, the relevant youth who most of them did not go to school. Others left the school at primary because of circumstance. And as you're aware, today they are very important person because the others who went to school, who has completed the school, but they are not feasible. But those ones looks important. And as a community, who are initially pastoral community, this was an initiative which you are really lacking. The issue of masonry, issue of construction, plumbing, those were the projects which we don't have. We don't have the manpower and people who have that ability. But today, our boys and girls who are here really showed up. I want to really appreciate. I remember there were 192 when we really started the project. And today, most of them left. Those who remain, I can really confidently call them heroes. Today, we were shown how to, most of us doesn't understand, even those who are graduates, who are managers. And this was a project which were really this community were lacking. Today, I am sure they are somewhere. On behalf of the leadership, my colleagues will speak. We want to help them. Today, I brought the CDF manager for this constituency, who are also with us in the morning, and to also be part of us, also understood, because in the CDF project, there is construction of schools and institutions. So we are really ready to empower.
We also want to talk to the county government and request them to also support this. And for that few remarks, thank you very much. I want to really say thank you very much. Martin Rajogan, UNHCR, odayaasha iyo gabdhaha, community Fafi, Arab Youth Peace in Japan, and iyo sub-county administrator, Mr. Olat was with us. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa dhalinyarada waqtiga badan ku bixiyeen arrintan, waqti qiimo ku bixiyeen. Markii la bilaabayay dad badan oo 200 gaari ay ahaayeen. Hadda waxaa soo haray in yar oo maanta ka faa'iideysteen. Marka koowaad waxaan leeyahay idinka dhalinyarada hawshan inta soo wadeen guul baad gaartay baan leeyahay. Taa ayada ogaada guul baad gaarteen. Ruuxa bilaadanka waxaa deeqa gacantiisa. Wax dad siima deeqaan. Waxaad ogaataan shaqada aad haysaan in shaqada lagu ganacsan yahay lagu faraxsan yahay. Annaga hadda la joogno mas'uuliyiinta iyo dadka naga weyn ilaa gabanaha ilaa MP arta waa laga warhayaa. Waxaana hubaa nin kasta oo mas'uul ah arrintan uu taageeri. Waxaad ogaataan marka inaad fursad aad haystaan ka faa'iideystaan inay isdaraabin dadkii marka hore shaqada la bilaabay 100 iyo waxaad ahaydeen 90 iyo dhowr cunug ahaydeen bishii saddexaad ee sanadkii 2017 haddana waxaa soo haray dad yar 100 gaarayn haddii la orotamo dadka qaad baa meel gaarahay marka waxaan rabaa in dhalinyaradiinan waad mahadsantihiin waad dadaasheen fursad ma qaateen annagana waad mahadcelin annaga waxaan diyaar u nahay leadershipka Dadaab Fafi iyo Garissa County guud ahaan in la taageero hadda ma sheegin waxyaalaha qaarkood aan suubinayno laakiin markii fursadda isfahan loo shaqeeyo waa la imaan doonaa waa la soo booqan doonaa xafiiska CDF xafiiska county waa la imaan doonaa Dadaab iyo Fafi qaas ahaan waxaan idinka saacideyn doonaa sidii idinku saacideyn kara laakiin idinka ha noqonina dad tuugsan wax sugayaan dad wax bilaabay oo wax raadinaya noqda waxaad ka raastaan oo muhiimsan meel site oo baak dhagax lagu jaro oo dhul weyn raasada soo diiday dhagax loo baahan tahay malur xajta dhagax hadda ku hal jar la soo kari fadhiiska waxaan heshaan waxaan jeednaa muddo dhow in afaan waxaan gacmeeyay ku la talinaysi hadii la siiyo baa heshaan meel weyn oo dhagax u yaalo oo hal mar intuu ma ilaa kun xabo ilaa 9 xabo gadan karaan raba taana sarkada waa lidin bilaab insha Allah ardiyo aamin Peace in Japan waxay sameeyay iyo lacag lagu bilaabo dhagaxii iyo birihi iyo macnaha galka xir lahaydeen iska difaaci lahaydeen way siiyeen waxa rabtaan waxa waaye in cashier lagu bilaabo taas insha Allah Ilaahay raado waa la siin gurbada xoojiya lacag badan ma jira kaan gabadha lacag ka soo weynaa insha Allah lacag ugu soo jirta faana ma doonto insha Allah Ilaahay raado gurbadan weedin committee waxaan xukun ku bixinaa waxa kale oo sheegay rabaa waxaan la hadlaynaa hay'adaha degan ee meesha degan ee UNICEF weyn tahay hadda hadalka kuma darin laakiin waan la hadli doonaa waan la hadlaynaa qalab badan bay hayaan mashiimay hayaan fan way hayaan ayaan iska waan la hadlaynaa sidii project lagu weyneyn lahaa dadka loo qaban lahaa because projectadan baa dadka deeqi kartaa wax dadka deeqay ma leh waxa ku deeqaysa dadka masaakiin waa guryo ma haystaan guryo lacag lama hayo laakiin dhagaxani waa maanta guriga ku jirto waa raqiise oo wali qiimo badan haddii uu jirto guriga u dhisay kii dhagax dhalinyarada ah idinka shaqada barteen idinkana waxay ku anficay دخلت كيليسان أو نوربت كيليسان صادرات ومحسنتين أدم فرحسن لما فرحسن. Thank you very much. Ladies and gentlemen, the county representatives, administration, our wonderful Peace in Japan and RRDO and my colleagues, ladies, good morning to all of you. I am so pleased to witness what I saw here this morning. And I think this is the best thing we can give to our youth. marka koowaad waan la salaamay marti sharafta meesha isku imaadeen dhammaantiin waa salaamantiin ka dambe ninkan wuxuu ka socdaa UN ka socda wuxuu dhahay maanta waxaa marqaati ka ah indheeda qabteen arrin aad loogu farxo dhalinyarta ee sameeyay soo uu yahay blockade-gaasi waa arrin wanaagsan oo fiican in dhalinyarta lagu kaalmeeyo oo la garab istaago. Before I forget, I am representing UNHCR and the head of operation Magad is away on another mission. That's why he's not here, but I'm representing UNHCR. sida horaan nigu sheegay ninkan wuxuu ka socdaa UNHCR UN xaalada nigu weynaa uu maqan yahay
shaqo uu ku maqan yahay soo asaga represent garayna oo ka socda ninkaas. I think these sort of projects are very, very important projects that target the youth. مشروعاً la qabanayo waa mashruuc wanaagsan wuxuu muhiim u yahay wuxuu caawinayaa dhalinyarta. And when I talk about the youth, it's not only the boys. What I am so much impressed was to see the ladies also taking part in the project. markii la yiraahdo dhalinyar ma aha ragga kaliya mise wiilasha dhalinyarta la sheegayo gabdhaha iyo dumarka way ku jiraan mashruucan maanta aan aragay badana gabdhihii way ku jireen oo way ka qayb qaadanayeen arintaasna waa arin lagu faray. One of the unique aspects of the project what I see is using the locally available resources, sand, which is so abundant here. And I think it's a very clever way of having something that is more sustainable. I can see this for many, many, many years to come. waxa kale oo aad ugu farxay waxa way u dhahay qalabkii wixii heli kartiin oo isticmaalaysiin oo ku dhisteen bulkeetiga oo tahay carradii oo meel kale loo doonaynin carradaas oo aad bulkeeti ka sameeysan bulkeetigaas oo asagana waqti fara badan jiri doona. But this will not work if we all do not support. It won't. Even though it's a brilliant idea, it's a good project, it will not work without the support of everyone. When I say everyone, I'm talking about the UN, UNHCR, the agencies, the county administration, but most importantly, the local community here. مشروعاasna ma socon lahayn hadii gacan weyn laga geysanin gacan weyn waxay ka geysteen waxaa kamid ah ardayda oo maalan inay bartaan mashruucan waxaa kamid ah county government waxaa kamid ah UNHCR iyo qof walba mashruucan ito gacan weyn ka geystay. So for us, even though my boss is not here, I am saying that I will take this to UNHCR, and if we do need to do construction, then of course we need to come here and then see how we can collaborate. ninkan wuxuu ni ballan qaaday maadaama uu asagu hadda uu represent garayna mise uu mathalaya qofka ugu weyn UNHCR kii weyna uu maqan yahay wuxuu dhahay waxa ballan qaaday mashruuc inaan geyn doono UNHCR xafiiskeeda oo aan dhihi doono Allah wuxuu baahan dhismaha inay isticmaalaan bulkeetigan markii la rabana in la yimaado oo dhalinyarta la soo raadiyo oo loo iibsado. All right, not going too far. I think there is also some studies called the tracer studies, and I'll let our livelihood colleague come and tell a bit more about that. These sort of projects must also be recorded, and then it can be showcased at the other forums where potential source of funding can come in. So could you come and just say a little bit about the tracer studies, please? مشروعنا markii la rabo in la fuliyo waxaa muhiimsan in mashruucaasito la duubo qaab video han loo qaado mise qaab qoraalba oo lagu gudbiyo gurbiyaasha sida WhatsApp-ka meelaha bulshada dadka isku imaadaan si loo arko mashruuca wuxuu yahay. Assalamu alaykum. magacayga Xasan Baldaar waxaan ka socdaa qaybta library UNHCR. sidoo kale sheegay Evans tracer study waa jiraan qaadirno hay'adda oo rich waa garanaysan somo oo maaragtay nidaam xafiis ku leh iyo hay'adaha library ka shaqeeyaan marka waxaan fiirinay tababaro badan baa laga sameeyay nidaam for the last 10 sano hadda soo dhaaf ama 15 sano marka waxaan rabnaa inaan ogaano tababaraha la sameynayo iyo inay saameyn ku yeelanyihiin maaragtay bulshada iyo in tababarkan loo baahan yahay marka waxaan rabnaa by April iyo hadda waan ka shaqeynaynaa meesha lagu gaaro April iyo May inaan dhaweyn maaragtay assessmentka oo maaragtay tababarka haddii shaqaan ay noqoto haddii blogan uu noqdo dadka sameeyay
waxaan rabnaa inaan la fariisano oo la weydiiyo suuqana la fiiriyo in suuqa looga baahanahay in looga baahnayn dad waxaa jira sharqaamo bilaabay 15 sano waxaa laga yaabaa hadda in sharqaan loo baahnayn dhabanaan marka waan fiirinaynaa in laga bedelo waxyaalaha laga sameynayo dadaab marka waxaan rabnaa inaa ka qayb qaadatiin dadkiina maaragtay la tababare thank you السلام عليكم أنا وعي قد جريت إن كان جريني وحال ده حسين محمد علي وحالنا هاي نينكا مثلا حفيز كإم سي إيجا لدب محمد عبد الفارح عبو بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد مركب وحال روا إن إذين شو ما أنت أدونك حكجرا عذر أفكيس اللي جرين لا إنه إلهي عذر كان سوق جرسينين إن فتحها ونمر كمارنا oo adduunka oo dhan bilaahay uu ka bixi annakana ilaahay uu soo gaarsiin wax la yaab leh oo afkiisa la garan waay yaa la sheegaya ilaahayna annakana nama soo gaarsiiyo kuwa uu hayaan allah ka bixi midda labaad waxaan rabaa inaan beed u celiyo dadka waalidiinta ee intaan u yeeray xaafadooda ugu tegay waraaqaha u geeyey sida sharafta leh ayagoo dantoodii iyo howlahooda wataan imaadeen oo ka soo qayb galeen xafladan ayakana imaadsan yihiin ودرنا دم بصلومية أنت كدب بيسوي شغلة أقوى نول بوك لكن كم فائدة سنين أدانا رد إذا ما كان رد تسكت شغله وحكى فائدة سنة مجرو سيا تداب هيدو إمالين لوا بروجكت لوا هيدو بلوا بروجكت أو مهم أو هدي الوح لا يقبل لها ما تلقى فائدة لها لوا هيدو باقته وهي هاد NRC أو يابه يبيسوي markii yaab la keenayo oo dadkii wax la barayo oo electricity la barayo oo carpenter la barayo wax la barayo power lighting dhadhan ma qabin maanta halka ruux intuu meesha ka soo baxay power lighting dhadhan la qorba la waa intaas oo sanay meesha ku dhisan marka dambiga ma anaka askala masaayidal wixii ka soo baxay mukaambo waa wixii hada ka soo bixay ama guri dhisayo ama wax ka soo baxay mukaambo Soomaalida lu kale hada biswin shaqada ay bilowday ayar waa shaqo muhiim gabar iyo wiil buu isku dartay gabadhan arkay hadda meesha hagaajinaysay waligay inta adduunku na gabar ba sax u hagaajin doontaa ma isma leenan waxa loo baahan yahay marka haday hay'adii waajibkeeda gudatay oo gabdhihii iyo wiilashiba ay wax bareen waxa la baray in laga gato la rabo oo guriga aad ku dhisatiin oo aad dhahdeen intaasoo blog iyo hagaaji guri baan dhisan rabaa hay'adaha qandaraas markay bixin rabaan ay dhahaan intaasoo blog baan rabnaa ama intaasoo guri inaan noo dhistiin baan rabnaa in la dhaal rabo in la beec la geliyo la rabaa ayaka naftayda in idol laga dhigo oo intii wax la baro on bahalaan iska agtagtaagdaan lama rabo dadka la rabo inay u bilaabaan oo becsharada u bilaabaan annaka la rabo haddaan rabno jooyo aan ku bilaabno marka hore hadda guri kala cabsan waxay qabteen iyo wixii ay kareen iyo adeegoodana waan wala aragnay waan wada soo xalbo dadkii hadda aan arkay aan ku soo wareegay magaalada sida aqal heeri oo kale qandaraas bay siiyeen oo aad baan ugu farxay maama jaalo oo kale waan arkay inay kuway qandaraas siisay muxuu kuwii kalkeen haajir axmed nimankaas dadka community-ga ee becsharada ee guriga dhistar rabo hal raa ilmaha inaad guriga ii dhis dhahdin biswina markaas ay moral bay heli ilmi oo guriga dhisayin oo dadku u shaqeynayeen markay arkaan ay kana moral bay helayin wax alla wixii aan ka codsano dhan niman ilmaha loo qabtana way u qaban karaan sameyna karan marka hawsha labada dhinac in la hayo un baa fiican moogi in hasho meel un laga fiiriyo on ma fiicno dadka dhan waa wada hayad kuwana hayad mooyisiin hadda alaab baa loo soo dhiibay un dan baa loo soo dhiibay moogi waa bini'aadam inkoo kale wax qabad un baa la rabaa in la iskugu imaado meesha sameyna karan marka waxaa la rabaa hawsha ayada inaan meesha lagaga tagin in intii la isku imaado aan la iskaga tagin oo mira dhalkeedii la helo la rabaa waxaan aad ugu mahad celinayaa dhalinyarada waqtigooda oo dhan intay ku dhumiyeen hawshan qabsadeen ee mustaqbalkooda inay ka dadaalaan alaabta ay hawshan u barteenna way mahadsan yihiin boqolkiiba boqol annagana waan idin garab taagannahay haddaan nahay xafiisyaha siyaasiyiinta wuu ka warqabaa MCA-ga Dadaab maanta xafladan meesha ka dhacayso wuu og yahay iyagu salaam buu yiri waxaan u sheegi dad shaqaysan karo oo dhalinyaro ah oo wardkaada joog
inay dhadhaab joogaan farintaasaan u dirsan saambaantadaan u sheegi haddaan rabo conference telephone baan dad qaarkiin ininkii nala gelin oon inala heshin sida county wax looga qaban lahaa haddii ilaa yidhaah waad mahadsantihiin wabilaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu